السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا خيارة قيمها بدن ملك السود جلس وعطو أدبن كو سلام يا خير يا بركة أيين كوتشرنا أدينا نكون رجينا يا إن فضلا هديات نقع سبتها هاي مقال الله يكون فوق ومقالان كسود من جودها عاصمة هرجيسة كل بجواب كسود دوبنا إن فضلا مقال الله يكون فوق الروح عليا سيو جارو ضد فربدن إن فرينتنا حق الدنبي أي نقول وذاك دونتا maanta daawadayaal waxaynu nimi xaafada run ahaantii balaankeeda iyo qaab qorsheedkeedu aad u fiican yahay xaafadani dhanka dayrarka si fiican baa loo habeeyay wadaduna waxa weeye wado laba baabuur ku filan oo nafisa inkastoo dayrarka qaar ku soo yardhay yihiin wadada haddana laakiin dhanka kale markaad eegto waa baabuurta ku filan sidoo kale baabuurta yaryar ee xaafadaha dhexmaraya kuwa xamuulka waaweyn iskuma dhaafi karaan dhanka kale xaafadani waxay leedahay dhir qurux badan oo aad u fara badan guri kasta inkastoo guri kasta aanay ka samaysnayn laakiin guriyo fara badan ayaa intooda badani ay dhir ku horbeereen xaafaduna waxay ku taallaa meel dalcada oo sare haddaba xaafadan waxa ay ka tirsan tahay xaafadda jigjiga yar bay ka tirsan tahay dhanka nadaafadda way aad u fiicanta meeshan loo nadiifiyay xagga hore intan wadada aan marayo aan hadda isheedo ay qabanayso meeshaas waa meel baabuurta iyo waxyaabaha lagu iibiyo magaceedu waxa ku qoran Tawakkal Tires baa la yiraahdaa sidoo kale waxaan filayaa inay ku dhex yaalo meel banjar iyo waxa soo kala oo taayirada iyo waxa lagu hagaajiyo geed qurux badan baynu hoos maraynaa cadceediba dhanka inaga haysa galbeed waan idin sheegay baabuurta inta yaryar wadadan baabuurta yaryar baa mari kara oo si habboon oo nafisa u mari kara xaafadan waxay inta badan baabuurta taweyna dusha ay maraan saxmadeeduna inta badan ma badna wadadani waxay ku dhacaysaa iskooyiskii hore weyn gaari doonaa meel ku dhowna weyn tagi doonaa halkii ay wadadu ka leexanaysay isku ismaaha hotelka Baraar ama garoonkii dhalinta kubadda cagta ayay wadadani si toos ah ugu dhacaysaa sidoo kale waxaanu sii mari doonaa xafiiska golaha dhexe ee xisbiga xaakimka kulmiya ayaanu sii mari doonaa haddii la yiraahdo baabuurtu waxay ku socdaan xawaare yar oo iska macquul ah inkastoo mararka qaar aad arkayso baabuur si xooga u socda oo u badan baabuurta yaryar guryaha qaar baa marmar ku sameeyay wajahadooda hore si aanay ciidu aanay u soo marin ama aanay daadku ayna u keenin deerarka inta badan xaafadani deerar badan bay leedahay oo deerba nooc yahay kala design yihiin hadda waxay dhinac maray gaari fitisa halkan ay ka talaabayaan waxa weeye waa askari jiifa ama meel yaro dalcad loo sameeyay dalcad yaro sare si baabuurta xawaarahoodu uu aad ugu yaraado baabuurta xoogga u socda maadaama meeshu tahay meel xaafada wali hore ayaynu sii socon doonaa board ganacsiyada yaryar ayaa iyaguna ku yaala wajahada hore guryaha qaar iyagoo qolalkaasi lagu ganacsanayo waxaana kamid ah meelaha koofeerada maadaama meesha xaafad tahay ganacsiga yaryar ee dumarka gaar ahaan saloon ama bahalkan la isku qurxiyo koofeerka aynu naqaano xaafadu waxa weeye run ahaantii aad baan uga helay qaabkeeda aad bay qurux badan tahay waa xaafad degan oo bilaabuuqa arkimaysid meelo lagu xoonsan yahay waxa weeye dhirta hore inaga horeyso guryaha qaar ba waxay ku beereen geedkii yaray cambaha la oran jiray dadka qaarna quruxaan bay u beertaan mala qaarna waxay isleeyihiin dambiga ay idin dhalaan weedinka arkay guriga deerka dhagaxaale ee soo jeeda masaajidka xagga ka soo muuqda minaaradiisuna wayna sii mari doonaa haddii rabbi ogolaado waa masaajid aad u qurux badan baabuurkaayna dhaafay waxa la yiraahdaa geeya baa la yiraahdaa waa baabuurta kilomitirka lacagta lagu xisaabinayo dadweynaha magaalada Hargeysa qaada kolba intaas socoto ayaa lagu qiimeeyaa waa shirkad cusub oo dhawaan laga sameeyay
magaalada Hargeysa iyaduna shirkad kale dhow ee la yiraahdo dhaweeye ayaa jirta shirkad kale magac lahayd baydina jirta hadaanan xasuusnayn waxaan filayaa inay sahal ahayd baan filayaa imika hadda waxayna dhaafay 3 baabuurka raaxada iyo gaariga kale ee baabuurka kalena Ram baan filayaa Ram baa leeyahay iyo noohada hadda dhaaftay waa askar jiifa waxaynu ku soo dhownahay dhankii masaajidka oo masaajidka ugu weyn dhankan xaafadda ee jimcaha kale maalinta jimcaha lagu tukado intii aan xaggan wadada soo marayay halka masaajid baan arkay laakiin waxaan rajeynayaa inay masaajidda kale ay leedahay waayo macquul maaha xaafadihii aynu markii hore aan socodka ka soo bilownay inay kan iman karaan waayo uu ku fog yahay wadadu sidana u leexataa waxay ka soo leexataa dhanka galbeed waxaanay u leexanaysaa waxaan u jeedaa dhanka galbeed bay ka soo leexanaysaa dhanka waqooyi bay ka imanaysaa dhankan bari bay u soo leexanaysaa waayo masaajidkani waxa uu jeedaa dhankaas iyo waqooyi waka masaajidku waa masaajid aad u qurux badan desaynkiisana aad loo qurux badiyey weliba maalmihii uu cusbaa oo baroog ahaa aad baad ashqaraar buu ahaa si fiicanna waa loo dhisay shirkaddii dhistay waxay ku dhistay design aad u qurux badan lacag fiicanna la geliyey waxaad arkaysaa masaajidda waaweyn magaalada Hargeysa ku yaalo weyn oo lacag badan la geliyey haddana aan masaajidkii si fiican loo qurxin dee waxa weeye runaantii waa goob cibaado hase ahaatee in masaajidku hadduu yar yahayna qarashkiisii la geliyo haddii uu weyn yahayna in qarashkiisii la geliyo masaajidku qurux bato ay dushiisa ka muuqato maadaama uu yahay goob cibaado gawaadhidaas waxa weeye baabuurta qaada sharaabka iyo waxaas sharaabka moorgaraysan macnaha laga keeno juusiska oo kale waxa shirkadaha baabuurta leh inta badan waxay ka shaqeeyaan waxyaabaha xaafad leh ubax qurux badan waa 2 xaafadood 3 xaafadood oo isu dhow ayayna soo marnay dhinacaygan waxaa maraya niman dhalinyaro waxay ugu leeyihiin maxaafadda duubasaha baan ku yiri waxay nagu qabo waxaan ku yiri kuma qabanayo caruur baatiin marka waa kuwa ay hor cararaya arkaysaan gooladaasina ka laabanayna waxay u kacaysaa wadadani oo toos u gaaraysaa xaggii hoose ee garoonka dhalinta inagoo aynaan gaari karahayn ilaa halkaas oo muuqaalku inaga sii dheeraanayo fadlan commentiga noogu reeb raayigaaga xaafadan iyo waxyaabaha hadal hore waragtay iyo hadaan ka arkin sidoo kale muuqaalka like ku dhufo dad badan la sii wadaag sidoo badan gaadho dalcada yar bay hadda sii koraysaa wadadu waxa weeye korba loo fuulayaa hoosna waa loo daadagayaa gurigan uu yara sareeyaa hortiisana waxa ku yaala askariga jiifa ku yaala idinka arkay baabuurka kale ee indhacadihina isna waa kaas ka talaabay meeshani waa dukaan supermarket lagu iibinayo gaastii wixii marka khiyaarta qiimaha badan khayr badan baan idin rajaynayaa muuqaalka like ku dhufo saan idin sheegay commentigana faalada noogu reeb dhanka hoose raayigaaga aad bad mahadsantihiin waxaan idinkaga tegayaa saasiyo nabadgelyo